Sidee loo noqdaa qof smart ah amaba horumarsan? Ugu horreyntii, indheergaradnimadu ma aha wax aad ku dhalatay. Haddaba awoodda maskaxdaada waxaad ku horumarin kartaa in yar oo dadaal ah. Haddii aad rabto inaad smart ahaato, maskaxdaada uga shaqaysii waxyaalaha hal abuur leh iyo waxa loo yaqaano puzzles. Dabcan puzzle waa waxay adag tahay in la fahmo amaba la sharxo. Waxaana ka mid ah Rubik's Cube. Inaad samayso puzzle-ka noocan ah wuxuu maskaxdaada ka dhigayaa mid si fiican u shaqeysa, wuxuuna kordhinayaa dhimirka. Maskaxdaadu waa muruq, waa inaad ka shaqaysiisaa. Waxaa kaloo ka mid ah puzzle-ka nooca loo yaqaan Sudoku. Puzzle-ka noocan ah waxa uu samaysan yahay qaab xisaabeed. Isku day inaad xalliso, waayo wuxuu waasicin doonaa qaabka aad u fakarayso. Sudoku puzzle waxaa laga heli karaa buugaagta, joornaalada, iyo weliba isagoo free online ah. Qorista sheekooyin amaba gabayo. Samaynta qoraallo waxay ku khasbaysaa maskaxdaada ikhtiraacida fikrado cusub, iyadoo samaynayso waxa afka Ingiriiska loo yaqaano dialogue. Tani waxay kaa dhigaysaa qof si fiican u fakara, waxayna kaa caawinaysaa inaad soo saarto warbixin ama information qiimo leh. Qoristu waxay kaloo kaa caawinaysaa sare u kaca fahamka luqadda markaasi aad wax ku qorayso, iyo samaynta khudbado cajiib ah. Waxaad kaloo ku soo bandhigi kartaa qorista fikradahaada adiga oo aanan hadlin. Xal u helidda caqabadaha. Inaad ka hadasho wax uusan qofna fahmi karin macnaheedu ma aha inaad tahay smart amaba caaqil. Xariifnimadu waa inaad awood u leedahay inaad u beddesho wixii adag wax fudud. Practice garee inaad u sharaxdo dadka kale mawduucyo, programyo iyo wixii la mid ah. Markaa kadib fiiri sida ay u fududahay ama waadax u tahay sharaxaadaadu. Baro inaad si taxaddar leh u dhagaysato dadka kale fikradahooda ku aadan arrimo xasaasi ah, amaba waxay iyagu yaqaanaan oo aadan adigu aqoonin. Ma aha inaad ku waafaqdo waxay iyagu aaminsan yihiin, laakiin xusuusnow, qof kasta waxa uu leeyahay wax laga baran karo. Inaad su'aalo weydiiso waxay kuu oggolaanaysaa inaad dib u eegis ku samayso waxaad adigu aaminsan tahay, ama aad ogaato khaladaad ku jiro waxay iyagu aaminsan yihiin. Ahow qof qalbi furan, waayo hadba inta caqligaagu furan yahay ayaad su'aalo weydiisaa dadka kugu xeeran. Si aad garee hadafyo kuu gaar ah usbuuciiba hal mar. Su'aalo weydii naftaada inta lagu guda jiro xilliga hadaf kasta aad qabsatay. Meeqa hadafyada usbuuca ugu dambeeyay ayaan ku guuleystay? Maxaanan ugu guuleysanin qaar ka mid ah hadafyadeeda? Maxaanse samayn karaa si naftayda aan guul u gaarsiiyo? Weydii naftaada su'aalahaas iyo kuwo la mid ah. Si joogto ah u dadaal si aad ugu guuleysato gool kastoo ka mid ah hadafyadaada. Waayo, hadaf la'aantu waxay ka dhigan tahay inaadan lahayn wax rajo ah. Naftaada abaalmari markii aad ku guuleysato hadaf kasta. Intaa maxaa sii dheer? Ahow qof nidaamsan. Wax kasta uma samayn kartid 100% hubaal. Laakiin inaad waqtiga lumiso waa wax aad looga fiican yahay. Dabcan, waxaa jira muxtarifiin aan gabi ahaanba nidaamsanayn. Iska ilaali inaad ka mid noqoto dadka noocaas ah. Haddii aad samaynayso dadaal wax ku ool ah si aad u noqoto muxtarif, raacidda qaab maskaxaysan ood ku isticmaalayso waqtigaaga waa tallaabo weyn oo xagga horumarka ah. Mar walba wax baro. Waxaa jira ilo aqooneed oo aad u tiro badan dunida maanta. Tusaale, buugaag free ah, documentaries iyo internetka. Iskuulka aad ka soo qalin jebisay waa mid ka mid ah ilaha aqoonta. Haddii aad haysato straight A's, taasi macnaheedu ma aha inaad tahay clever ama aqoontii oo dhan aad dhamaysay. Maskax furan oo laga shaqaysiiyey ayaa kaa dhigi karta insaan wax kasta fahma. Joogtaynta inaad wax cusub baratana waxay kaa caawinaysaa inaad heerkaas gaarto. Haddii uu ku cajabiyey muuqaalka, fadlan ha la bakhaylin like iyo